السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan ka hadlo dadka u ooynaya farmaajo muxuu meesha u sii joogi waayay. Farmaajo maxaa looga qaaday madaxtinimada? dad baa aaminsan inay saas sax tahay. waxa weeye dalkan muxuu haytadiito mar hore la rabay in uu ka dhaco cod qof iyo cod baa rabay mar inuu ka dhaco. waxaas ay u dhacayaan waxa waaye dad baa raba madaxtinimada inay iska haystaan. koox group oo siyaasiyiin baa raba inay madaxtinimada iyaga ku wareegto. ala itaxaal waxa weeye dalkan shaqsi iskama laha, dad group iskama laha, dadka Soomaaliyeed oo dhan buu u dhaxeeyaa. waxa weeye muxuu haytadiito hadba 4 sanaba qolo baa maaragtay baa meeshan u soo tartamaysa, qofka ku guuleystaana meeshan madax ka noqonaya. dictator waanu soo aragnay, waanu ka soo daalnay. dictatornimo oo la iska haysta meeshan ogaanaan baahan. siyaad baran dhib badan ka soo maray muxuu haytadiito raba aan doonayo bal had inaan ka hadlo dhibtii siyaad bare laga soo maray. dad ba hadda waxay leeyihiin maxaa looga qaaday farmaajo, maxaa looga qaaday farmaajo. farmaajo waxa waaye shaqo kastood qabatid haddaan dadka kale la shaqayn karin dhibaato weyn weeye. waxa weeye dadka kale xaquuqdiisa waa inaad siisaa. dad dowladahan ka ceyrinaya xagga geynaya way fiican tahay, wadankan maaragtay dowladaha ka celinaya okay, laakiin wada shaqayn baa laga rabaa. wada shaqayn haddaadan lahayn dee maxaad meesha ka samaynaysaa? waa inaad dadka la shaqayn kartaa, aad la shaqayn kartaa dowlad goboleedyada, aad la shaqayn kartaa mid kastoo meesha jooga. haddaadan la shaqayntaas aadan lahayn dee meesha wax ku yaala ma jiraan. meeshana isaga hadda 5 sanad buu ku darsaday. marka anaga dictatorna ma rabno. dictator siyaad barnaan soo marnay oo dhibaato badan aan ka soo marnay. dadka badankiisa yacni oo hadda jooga waxay noolaayeen waxa weeye qaarna maba soo gaareen siyaad barre, qaarka noolna qaarna waxay soo gaareen siyaad barre. anagu dadka siyaad barre soo gaaraan ahayn iyo dhibtu uu Soomaali marsiiyey. Soomaali ibar buu ka dhigay, ibar siyaad barre. markii hore ha fiicnaado waxaana keenaya waxaas wuxuu qabtay, wuxuu ku cunay dictatornimo ku cunay oo ku baabi'iyey oo eber uu uga dhigay dadkii. waxaa la rabay yacni markuu arkay dadkii Soomaalida inay naceen, waxaa la rabay in xukunka iska wareejiyo, yiraahdo war hooy cid kale oo aniga hadda inacdeen Soomaaliya kale cid keensada. dagaalkii xataa lagu qaaday maaragtay Itoobiya iyo Soomaaliya waxa weeye generaaladii la shaqeynayay Caydiid iyo Maxamed Cabdullaahi Yuusuf waxay ka sheegteen inuusan dhigeysan gal dagaalka. marka dhibaato badan buu